السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتين ونسود ويننا ما نتعلق معذيني صاحب كينا سعداليا يا عذينيا وشو نكسل فيديو قدر مثل سبسكرايب للسارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بشوين دانا وحنا وحان لنا كسور هذا عجيب يمله ما انتشي كذا هكذا أي قبل مساء والزنبي iyo askartii filinki aynu soo wadanay ee cajiib markale maanta waxaynu ka bilaawnaa meel xasaasi ah oo iyagu oo dibadii u soo baxay kadib arkan gaari booliis ay isaga daaweeyaan daawooyina waxay ka heleen ayagoo isdaaweynaya oo daawanaya waliba qaaqdi meesha waxa ay ka baxeen gaarigii waxayna tagayaan doog ku yaala gaariga agtiisa ka bacdi iyagoo fadhiya oo iskayga hareeraha ay arkayaan laba nin oo doogka ka soo socda kabacdi markii dambe labadani waa ay soo dhaqsanayaan waxayna imanayaan dhankooda iyo halkii ay ka xigeen dadkan ay soo socdaan waa ay foorsanayaan iyagoo naxsan kana foorsanaya ayaga labadii nin waa ay u imanayaan wayna soo socdaan iyaga say u jeegarayaan una baaraan labadii nin way soo dul istaageen kabacdi ninkii qaaqda hareeraha ayuu eegay asagoo socda ayuu ku istaagay qorigii ninkii askariga ahaa oo lahaa askariga caadiga ahaa ninkii askariga waxaan haqay wuxuuna eega qorigiisii oo lagu taagan yahay haddii waxaa ugu sii istaagan waa u kala jabayaa ninkii aad ayuu waagay wuu booday qorigiina waa u kala hoos baxay kabacdi intuu kacay ayuu ninkii qoorta qabtay wuxuuna rabaa inuu ceejiyo oo isagoo marada ku hayka uu dhinto laakiin uma suurtagelayso sababtoo ah qaaq badan ayaa meesha joogta haddii uu dhinto waa caadi way waa siduu uu ku dhintay haddii laakiin ay xabad ridaan qaaqda oo dhan ayaa soo wada eegaysa waa sababtaas markaa uusan u doonayn in uu dilo una xabad ku dhufto zambiga ama qaaqan soo weeraray asaga laakiin wax kastaba ha ahaato waa ay isku dayayaan inay nafta ka saaraan cabay buu odhanayaa bul waa u ku ridayaa waxaa maqlayaa dadkii qaaqda ahaa ee agagaarkiisa ka dhowaa way usoo kala yaacayaan si ay u qabtaanay u dilaan waa yaacayaan waxayna imanayaan meel madooba saaxiibkii ayaa ninkii kale askariga ku qabanaya xoorto wuxuu odhanayaa sii daa ama qoriga kugu dhufanaya saaxiibkii wuxuu qornay ha ku dhufan qoriga saaxiib haddii ku dhufataa inuu midida igu dilayaa ha ku dhufan saaxiib ka kalena sii daa ayuu leeyay sii daa ninku wuxuu dhahday haddii aad meeshay ka tagtaan saambiga keliga ay cunayaan waxaan doonayaa nin kale saambiga uu la cuno marka waa sababtay u diidan yihiin inay gabadhu waxa uu imanaya zambi wuxuuna ugu weerarayaa shabaqii ay ku jirtay kabacdi ninkii qorigooda wuxuu eegayaa zambigii ninkii kalena wuxuu isku dayayaa inuu kusoo cararo kabacdi ninkii wuxuu odhanayaa wuxuu arkay albaabkii oo lagu soo jebinayo ama si xun ugu soo garaacayo kabacdi saaxiibkii ka odhanaya ka baxsanaya wuxuu ku odhanayaa zambiga iska celi wakaas wuuna u furaya albaabkii wayna iskaga yaacayaan labadoodii meesha sababtoo nafahooda ayaa khatar ku jira wayna baxsanayaan markay iska yaacaan gabadhi bay sii kaxaynayaan halkaas ayay kasii baxayaan ayagii laakiin ninkii kale ayaa albaabkii zambiga ugu soo gelayaan askarigii kale miskiinka wuxuu eegayaa labadii kale ee la socday saaxiibada ahaayeen markii dambe waxay galeen shabaqii kabacdi saambigii oo dhanna waxay kusoo jebinayaan albaabka si ay uga soo galaan oo wada quutaan cunto uga wada dhigtaan laakiin gabadhu way qaylinaysaa meesha ninaan kusii jiro ma doonaya ayay odhanaysaa gabadhna keligeed ayay meeshaba ku jirtaa kabacdi waxay wada odhanayaan aynu meesha sida ugu dhaqsiyaha badan haddaynan wada saaxiiba noqonina ma noqon karayno marka inaynu garbahays wada qabsano oo meesha ka wada baxno ayuunbay noqon karaysaa ayay ku wada heshiiyeen waxoodii oo dhan go-aankana way qaateen askartii dibadda
asxaabtuna waxay ku leeyihiin maxaa ragga usoo badbaadin weyday zambi ma ahayn ninka kalena wuxuu zambi bay wada ahaayeen kabacdi actarkii uu yaabaya yacni shoog baa qabanaya oo qalalaya wuxuu sameeyo ayuu garan waayaya hawshan meel uu ka bilaabo iyo meel allaale ayuu garan waayaya marka asxaabay maanta barta ayuu noogaga eegyahay video ama filimkii uu imtixaanaha inoo ahay cajiib iyo war kale waxaynu soo wadanaa part 3 ama qaybtii 3 insha allah oo nala socon doontaan waxaan idinku sii bogaadin lahaa inaad youtube-ka subscribe-ta iyo like-ta ku dhiiragelisaan sidii idinku soo badiyo filimaanta imtixaanaha ee aadka u tiraha badan waxaan idin odhan lahaa daawada oo taxadara garabkiinana ilaahay ha galo insha allah wayno iyo muuqaalka xiga